ama Soomaaliya xalsaas guriga loogu garaacay saasa loo dilay naag madooba ay dishay dhahday oo la aqoon albaabka yal بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشين آمن عليك أوفيشيال سلام كدب ولا ليال أرنتن هورتينا تالا وأرن دور سنة كهر بيد عاد wax cusub maaha laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo waa inaan arkay in arrintan iyo wax la mid ah Soomaalidu wali ku dhacayso insha Allah waxaan rabaa inaan idinka waaniyo arrin yar taasoo ah arrimahan oo kale inaad ka taxadirtaan wali way dhacaysaa bulshada Soomaaliyeed way ka dhacdaa hooyadan Soomaaliyeed Manchester bay ka dhacday gurigeeda loogu yimid iyadoo ilmaheeda yar haysata albaabka waxay ka furtay naag madow anaga madow baanay waxaan ka wada Afrikaanka kala naag ah bay ka furtay dadkan iska xoogga waaweyn wada ogtiin inay naga tabar badan yihiin say doontaba ha ahaatee arrinta waa la dilay hooyadii waxa dhiig ka daatay iyo sida ilmaha yar loo dilay iyo sida hooyada loo dilay waa tan la daawada la furin markaysin Soomaaliya albaabada la isku furin dhiigaas mujeeda madaxeeda lagu garaacay korkeeda mujeedin baby yara way haraatay sayirka ay haysan darbiga ku garaacday way isdilay laakiin disho xunugdish markaysin guriga loogu garaacay saasa loo dilay naag madooba ay dishay dhahday oo la aqoon albaabka la furin markaysin Soomaaliya albaabada la isku furin dhiigaas mujeeda madaxeeda lagu garaacay korkeeda mujeedin baby yara way haraatay sayirka ay haysan darbiga ku garaacday way isdilay laakiin disho xunugdish markaysin la bawaan loogu garaacay saasa dhiigeeda ayay dhulka ku dhamaysay haddaba Soomaaliya ayaan dhawatay Minneapolis waa tii hooyada Soomaaliyeed ee gabadheeda yar loogu soo galay guriga dhexdiisa lagu dhex dilay waliba waxaan maqlay gabadha ay koronto lagu dhajiyay baan maqlay arrintaas waxay tan hadda aan idiin soo bandhigay waxay dhacday 2019 baa umaleynaya oo 3 sano ka hor maanta 2021 baa lagu jiraa wali way nagu dhacaysaa sababta maxaa keenay markaa sababta waxa keenaysa fudaydka nagu jira haddaan Soomaali nahay iyo hubsiina la'aanta haysata guriyahan iyo albaabadan la iska furayo khatartan ay keentaa iyo wax la mid ah iyo wax ka sii daran guriga awlaad haday joogto iyo haddii la joogin markastaba qofka inuu taxadir u leeyahay fiican haddii awlaad joogtana kaba sii daran haddaad furto ilmahaaga la xadaa waxba lama aha in la qaato in la dilo in la kufsado waxba lama aha adiga weyn haddaaba dagaalami kartid waxa dhacda ilmo yar yar oo Soomaaliyeed oo markay qaar guriga looga tagay kaligood oo markay qof arkaanba albaabka iska furaya waalidkiina lama joogaan waxa ilmaha lagu sameeyo lama oga taxadir baan uga dan leeyahay inaad sameeysan Soomaaliyeed qofkii videogaygan maqla insha Allah haday awoodaan sii gudbiya kullayba qof bay wax ku anfici doontaa qof bay wax tari doontaa siiba inta badan dadka wadamada qurbaha ku cusub ayay arrintan ku dhacdaa dadkeena hore u sii jooga way yaqaanaan khatarta ay leedahay laakiin qofka markuu wadanka ku cusub yahay waa iska daacad markiiba albaabka uu furayaa khatar badan bayna leedahay tuugo badan bay leedahay dhac badan bay leedahay waxyaabo badan baa jira Soomaaliya inaad taxadirtaan baan idinku talagalay insha Allah idinkuna soo duubay videogan video cusub maaha dhiigana arkaysan dhiig cusub maaha waa dhiig hore u dhacay laakiin intii in la mid ah wali ku dhacaysa Soomaalida hooyadii Soomaaliyeed Minneapolis joogtay ayaantii dhawatay ku dhacday ma ay fogeyn adigu waa 2-3 isbuuc ka hor meelahaas wali arrintaas khatarta ah ee dhacaysaan rabaa inaan idinka digo aad ka digtoonaataan oo idinka waaniyo insha Allah ciyaalka ka dhaadhiciya inaynan guriga albaabka iska furin adiga weyn laftirkaaga albaabkaaga iska furin waxaa jirta marmarka qaar xitaa in dadka qaar ee askari iska soo dhigaan askari haddaad aragtay macnihiisa maaha inuu askari sax yahay wadamada aan ku noolnahay waxay leeyihiin maalin ay shaydaanka caabudaan walayaada billahi ilaah subhanahu wa ta'ala diin wanaagsan siiyanaga ayaga waxay leeyihiin maalin Halloween la yiraahdo oo shaydaan la iska dhigo qofku wax allaale wuxuu jeclaysta iska dhigayo hadduu isku ekaysiinayo ya xaas xitaa dhar iyo xaas soo gashanaya noocaas oo kale waxaa jira dad dharka askarta chance u hela oo soo gata oo numberkii halka ku dhijista aad arkayso markaad ka fiirisay albaabkaad leedahay waa askari dhab ah laakiin askari dhab aan ahayn oo tuug ah
oo raba in albaabkaaga furtid dadka noocaas oo kale ah haddii matal askari dhaba aad saad u ogaatid haddii lagugu soo garaaco ku yiraahdo askari baan ahay waxa wanaagsan caqli inaad isticmaashid waxaad wacaysaa nambarka magaaladaada emergency-ga la waco ama 911 ha ahaato ama 999 ha ahaato waad wacaysaa waxaad leedahay anuu magacaasaan la yiraahdaa adresskaasaan deganahay qof baa albaabkayga taagan sheeganaya inuu askari yahay miyaad ii soo dirteen askari heblaaye hebel baana waa inaad magaca u sheegtaa waa inaad adreska u sheegtaa tiri anuu adreskaasi ciwaankaasaan deganahay miyaad ii soo dirteen askari markaasay kuu sheegayeen ku dhahayaan haa gurigaaga waxaa ku soo maqnaa oo u soo dirnay kuna soo socday askar baa kusoo socotay ka fur waa haddii ay sax tahay meesha saxdaad ka ogaanaysa waa inaad 911ka ama 999ka wacdid waa meelaha laga ogaan karo haddii uuna ahayna markaasay ku dhahayaan may annaga ma naqaano qofka kuu yimid albaabkaaga ha furin waxyaabaha lagu hubsado hubsiinadaasaa loo baahan soomaaliyeed albaabka la iska furayo ciyaalka ciwaanka iska bixinayaan oo qofka adreeska iska siinaya qof baa telefoon soo wacaya adreeskay siinayaan waa khatar waa inaad ilmaha ka dhaadhicisaa inayna albaabka iska furin guriga muxuu ahaa adreeska ayna qofayna aqooni siinin war soomaalidii laftirkooda ayaa hadda sidan samaynaysa sida Minneapolis lagu sameeyay hooyadaas way u soo dhuunteen albaabka ayay iska dhigeen laba gabdhood kaliya inay taagan yihiin waxaa dhacday marka qaar anaga wadamadan ku noolnahay bildhimada ama saraha la degan yahay camera ay leedahay albaabkaaga qofka soo garaacaya markuu sarta soo galayo aad ka arkaysid waxa laga yaabaa labadaas gabdhood bas inay kamarada isku aadiyeen oo aad ka furtay khatarteeday leedahay waa inaad aad iyo aad u hubsataa qofkaad albaabka ka furaysid taxadar badan inaad samaysaan baa idinku talagalay idinkana waaninaya insha allah waxa kaloo dhacda marka qaar ina awlaadda aan la barin say isku badbaadiyaan awlaadda waa inaan barno waxyaabo badan oo ah matal haddii lala cararo baabuurka hadduu la cararo kale ama qof gaarigiisa ay maaragtay khasab lagu geliyo ileen ma gelayaan iyaga ilmaheena horta runtii ma diyaarsana soomaali haddaan nahay caruurteena ma diyaarsana ama dalkii ha joogeen ama dibadda ha joogeen kuwa dalka jooga xitaa ugu sii daran fiidiyoyada markaan arko lasoo duubo waxaad arkaysaa ilmo yaroo 3 jira oo buur cidla ah iska dhex maraya waa waxyaabahan ka yaabay soomaalida waxay sameynayaan dalka dibaddiisa dadka jooga Soomaaliya kuwa jooga hadda ay maqlaysaan caruurtiina yaryarka khatarta ay gelayaan ka ilaaliya maanta caruuraha waa la soo xadaa qurbaha aan joogno caruurta waa lagu soo xadaa waana muxuu ahaa la keensadaa qurbaha la keensadaa sidaa sheegteen xubnaha jirkooda la gataa ciyaalka yararka 3 jirada iyo 2 jiraha buuraha iyo meelaha cidlada iyo xoolaha inta u dhiibtaan khatarta gelaya ka ilaaliyaan idin dhiilaa insha Allah caruurta qurbaha joogana inta badan iyagana waa la khiyaameeyaa khiyaano badan baa lagu sameeyaa marka idinku waxa rabaa inaan idin sheego ayaan dhawato gabar yar oo cadaan ah baabuur la cararay baabuurka marka loo cararay calaamad baa jirta ay isku yaqaanaan oo qofkaasi lagu badbaadiyay gabadha lagu badbaadiyay calaamadaas hadday hore u aqoonin calaamadaas aan rabaa inaan idin tuso insha Allah sidaad ilmihiina u bartaan askarta ayaa calaamadaas muxuu ahaa dadka bartay anna ina idin sii gudbiyo bulshadeedii uga faa'iideeyay ayaan jeclaa insha Allah calaamadaas waxaan rajaynayaa inaad arkaysaan waa sidan oo kale gacanta saas uu qofku dhahayaa 5 farood bas saas u taagaya 5 farood bas saas u taagaysaa suulka saa u laabaysaa ma arkaysaa kadibna 4 farood bas saa u laabaysaa waxaan rajaynayaa inaad aragtaan gacanta saas uu qofku dhahayaa saas u taagaya macnaha waxay ka dhigan tahay gacanta saa u taagan ay suulka markuu laabo need waxaan u baahanahay help marka gacanta soo laabtid caawitaan baa u baahanahay adoon hadlin markay tuugta wadato qofka saasun buu dhihi saas 5 farood u taagi suulku soo laabaya id saas u taagan tahay marka tan la laabo need bay ka dhigan tahay waxaan u baahanahay help caawitaan baa u baahanahay kelmaddaas waa inaad barataan taas waa inaad barataan haddii la ciyaalkana bartaan waxaad kaloo baraysaan qofka marka uu ku jiro matal waxaa laga yaabaa nin naagtiisa dila ama hooyo dhibaataysan oo aan rabin inay ninka uu maqlo markay booliiska wacato kale waxaa jira kelmad la yiraahdo NORA waa nuura waa sida nuuro oo kale NORA waxay u taagan tahay waxay u taagan tahay need waxay u taagan tahay officer oo ah askarigii waxay u taagan tahay right away ma fahmaysaa right away bay u taagan tahay I need officer right away way
Nura, need officer right away. waxaan degdeg ugu baahanahay askari inaa ii soo dirtaan macnaha qofka wuxuu wacayaa telefoonka bas buu wacayaa telefoonka markuu waco wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay gargaar degdeg ah marka waxaad dhahaysaa hi Nora yani qof inaad salaamay sidoo kale hi Nura مثل تليفون كادرتي هاي نورا بس باتري أذكرت وعلامة اسكو يقانان يعني وقرقار دق ما هالليسيد وحمد ليس لكن حرف كوحو تاغن يابان دين شاقي نورا وحو تاغن تا need officer right away وحانو بانا هاي أسكري بان دق وقوبانا لكن أدوغو مركا تليفون كديريسيد أما ميل أد كل منيسيد كبا سوقات قرقا لغو سوقالي توق با كو سوقا شاي توق تمركا كو سوقا شاي واحد سلايدا هاي نومو أو يان لغو أركين meel baad ku dhuumanaysaa telefoonka markaad dirto tartiib baad u hadlaysaa waxa la ama qoraal ahaan haddaad doonto haddaad telefoonkaaga markaa wadato oo text message aad diri kartid oo aadan qoraal badan iyo ciwaankaaga iyo waxba ka gaari karin because hadda gaalada waxay yaqaanaan ciwaanka wuu ku xiran yahay telefoonkaaga gargaarka degdega markaad saas u wacdid khasab ma inaad ciwaanka bixisid horaa lagaaga imaanaya because telefoonkaaga wuu ku xiran yahay marka مثل قرال أو كلا text message هذا قدر تو أو أما معناها دي كل 91 أما قانين text message اللي قدر كره لكن أدو على كل حال مركا الترتيب وهذا شو وحال هذا هاي نورا قفنا سلامي سيدو كلا وقاعدنا يعني ما فهمت أما hello نورا hello بدنا hello باستعمالها هاي وما بهنا hello نورا والله هذا هاي مركز مركي بوليسكو قرنا يا إن الجرجار دق وبهن تام waxyaabaha soo kale inaa aad uga fiirsataan caruurtana la baro in telefoonka marka loo soo diro ayna adresskii ciwaanka iska bixinin inay guriga albaabka iska furin dadka waaweyn inay albaabka iska furin tuugada in la iska ilaaliyo waa la isku soo ekaysiiyaa waxay iska dhigaan kuwa guriga wax ka hagaajinaya way ku yimanayaan waxay ku leeyihiin waxaasaan bixinaynaa muxuu ahaa waxbaan soo raqiisinay xayeysiin bay kuula imanayaan laakiin waa tuugo markuu qof kula hadlayo qof kala gadaal ugu jira u dhuumanaya oo meelaha ugu jira dad yaabo badan sheekooyin badan oo maqlay baa jirta marka aad ina uga taxadirtaan qofkan albaabka ka furaysa albaabkaaga inuuna marna walba furnayn mar walbana aadan qof walba ka furin aad ina uga taxadirtaan baan u baahanahay hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah waa ogtihiin siyaabaha badan ee dadka loogu soo galo waxaa jira kuwa badan oo scamming sameeya ama dadka dhaca oo waliba hindida u badan hindida way ku soo wacayaan waxay ku dhahayaan magacaaga bay soo helayaan ciwaankaaga bay soo helayaan waxay iska dhigayaan qofku yaqaana waxay ku dhahayaan waxaan kugu leenahay deen baan kugu leenahay daadan deenka degdeg u soo bixinin waa lagu xirayaa ama muxuu ahaa akoonkaaga iyo bangigaaga lacagta toos uga baxaynaa tuuganimada noocaas oo kale way yaqaanaan ha maqlina waayo ciwaanka iyo adresska waa la iska soo heli karaa meelo badan baa laga soo helay qaar baa bangiye iska dhigay qaar baa kun oo lacaga lagaga qaatay oo diray oo ay qofkii dhaheen macnaha ku soo dir lacagtan halkan siyaabahaas oo kale ha aaminin tuugada ku soo wacaysa ku dhahaysa lacag baan kugu leenahay qaar baa ku dhahay haddaan ku xirinaa askar baan kuu soo dirinaa qofka wadanka ku cusub ama aan aqoonta u lahayn wuu khalkhalaya wuxuu leeyahay maxaa igu haysataa oo maxaa kugu sameeyey oo waxaasaad gelaysaa kadibna way kaaga faa'iidaysanayaan waa program dhan oo laga soo daayay internetka marketplace baa la dhahaa marketplace scamming ku qora internetka ku jirtaa waxay inta badan u badan yihiin hindida ama eeshiyaanka kale u badan yihiin hindida u badan kuwa inta badan dadka soo waca lacagta kaga qaata khiyaanada kaga qaata haddase waa la fahmay dadka intay fahmeen baa iyaga lagu ciyaaraa ayagii baa la ogaaday xafiis dhan baa u furan ma fahanteen tuugada noocaas oo kale ah waxay idin leeyihiin credit card wax la yiraahdo deenka aad qaadato kalaan kugu leenahay heblaayo soo ma tihid maxaad noogu soo jawaabi weyday lacag intaasaan kugu leenahay qofka intuu khalqaluu dirayaa qofka u diraysidna ma taqaana telefoonku way bedelayaan 120 telefoon baa ku soo wacaya ha maqlina waa been waxaas oo dhan bangigaaga toos ula hadal way og yihiin bangigaaga qofka iman kara iskama qaadan karaan lacagtaada telefoonada aad ka jawaabaysaan oo aadan aqoonin ama maaragtay aad ka khalkhalaysaan iska ilaaliya tuugada iska ilaaliya scammingka wax la yiraahdo tuuganimada iska ilaaliya ilaa hadda Afrika ku dhacday Afrika waxa ayaan dhawatay bariixaas waxa lagu sameeyay gabdho Soomaaliyeed baa lagu sameeyay Nairobi nin hindigaas oo kale u tagay gabar buu la sheekaystay shukaansi buu ku bilaabay wuxuu yiri heblaayo waxaan ku wadaa waxa la yiraahdaa hadiyad baan ku wadaa hadiyadana muxuu ahaa aan ku soo diray muxuu ahaa sheeg ciwaanka aan kugu soo diro ciwaankii aan kugu soo diri lahaa sheeg
qof baa u yimid gabadhii u imanaya qofkii markuu u yimid wuxuu ku yiri muxuu ahaa ciwaankaagaan u baahana waayo hebel baa adrees muxuu ahaa hadiyad kuu soo diray hadiyadii markay istiraahda qaadana wuxuu leeyahay aniga lacagtii aan lagu soo qaadi lahaa ama meesha boostada laga soo qaadi lahaa bixi qofkii lacag badan buu saas ku qaatay tuugo badan baa jirto haddaan idinka sheekeeyo aad yaabaysaan oo aan anigaygan xitaa qaar aan maaragtay soo helay meelaha ay degan yihiin iyo adreeskoodii iyo waxoodii aan soo helay inay tuuga yihiin aan ogaaday ee rabay inay dhacaan oo aan ogaaday inay tuuga yihiin ogaadana inay maaragtay wax saxa kambini saxa ayna ahayn iska ilaaliya marka waxaan idinku soo duubaya cajaladdan inaad taxadirtaan iskana ilaalisaan khatarta ay leedahay tuugada iyo khiyaanada iyo waddanka markaad weliba ku cusub tahay sida lagu khiyaami karo beenta lagu soo sheegi karo albaabadan aad iska furaysaan khatarta ay leedahay caruurtan albaabka iska furaya khatarta ay leedahay tuugadu sida idinku soo dhawaanayso waxyaabo badan baa jira marka aad u taxadiraan idin dhihi lahaa haddii ilaa yidhahda insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaashina min alika official waanadaas yartaa idiin soo gudbisay insha allah kuwa wax ku qaata ilaahay naga dhigo kuwii fahmana ilaahay naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu